doorashooyinka siyaasiyiinta gobolada waqooyi ayaa ahaa mid soo jiitamayay waqti dheer kaasoo istaajiyay habsami socodka doorashadii la rajaynayay ee xubnaha labada aqal ee gobolada waqooyi balse hadda heshiiska ay gaareen ayaa noqday mid ay ku wada farxeen dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolada waqooyi runtii dadka reer waqooyiga ah ee magaaladan maartay ay deegaan doorashadooda ay Soomaaliland tahay magaaladan lagu dooranayo waa ku faraxsanahay inay heshiiyeen runtiina waxa la isku maartay diidanaa waxay ahayd ashqaas dagaalsaneed mid jirin colaad la isku qabay mid jirin waxa kaliya la isku maartay maandhaafay in doorashadeenu ay sidan ahaataa isku maandhaafay intii waa laga heshiiyay waxaan rajaynayaa doorashadii 2016 ka dhacday Soomaaliland ee Muqdisho reer Soomaaliland Muqdisho ka dhacday inay aad uga qurxanaan doonto mid 2021 doorashada ama heshiiska siyaasiyiinta gobolada waqooyi ay ka gaadheen khilaafkii muddada soo jiitamayay qabashada doorashada Soomaaliland gobolka Muqdisho ama Banaadir lagu qabanayo runtii saynu la socono ama la socotaan maamulada qaar doorashooyinkooda aqalka sare waxa ka dhacay weyn wada ogeyn waxaan si aad iyo aad runtii halkaan nurta aan bogaadin mudan doorashada Hirshabeelle qaabka liiska murashaxiinta oo uu soo saaray Ali Guudlaawe tartamayaasha dhamaantood dhalinyaro waayeel oo isku dhaf ay ka muuqatay waxaan aragnaa aanu qabnaa ama aanu ka filanaynaa in doorashada Soomaaliland ay geli doonto kaalinta koobaad ay u noqon doonto tusaale maamul goboleedyada koonfureed inay u noqon doonto tusaale wanaagsan